بسم الله الرحمن الرحيم تلك قالقا يعني جعلها يا عبد الله حامد kusoo dhawaada ma sha Allah runtii halkan waxaan isugu nimi maanta inaynu ku kulanno shirkeennii Cabdilla Xaamud ee Cergaabo Dhabandhiga lagu qabanayay 9-ka tawfiiqtu aynu ku taageero ku soo dhaweyno waxyaanu tari karana taro marka runtii aan waan dambaynayaa waxaan iskaga soo dhaweysanaynaa marka hore dhamaanteen marka Sheekh Mukhtaar inuu quraanka iyo noogu furo iyo talada iyo waanada Sheekh ku soo dhaw Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الظاهرين وصحابته الغر الميامين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما هد إلهي كدب صلي الرسول كينا صوبا صلوات الله وسلامه عليه waxaan halkan maanta isugu nimi annagoo beesha Cabdilla Xaamud inaanu halkan ka soo jeedno taageero ama baaq taageero oo aanu ku taageerayno shirka beesha Cabdilla Xaamud ee la qaban doono bisha Juun 29keeda waxaanuna Ilaahay ka baryaynaa inuu shirkaasi noqdo kii midho dhala wada jir walaalnimo iyo midnimo ay ka soo baxdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحونا سبحان وهالنعيا أقوياء كل شيء تميمي وليمي شرفي Cabdilla Xaamud ونعيا سعالي لما تخل بشا الحال وعلى شرفها ونشوغ بلان لندن ويسوي معنا شيخنا بالتابعين سيهم ويخلنا معنا ويقولنا إن شاء الله وحنا آل مغانين يا النعيان خلاء الشيخ العصري موسى إسماعيل أيوه يغنى سنة أما شبلين صالح موسى صالح عبد الحامد اسمه وين بلغ عن شنعيان شيخ أنا حن شعلها يقول عينيا شنو ولا أحسن صباحان كان Cabdilla Xaamudna إلا شنو ولا أحسن ونسوي معنا وتوصل نسوي معنا وأنا نقول هلا ونقول بس قلنا مثلا موسى إسماعيل سنة بلغ علينا تبيتنا إن نسوي سوا نعلو ومثلا عشرة كسلان أنا نسوي ويلنا والسلام عليكم تتخيل الحياة السلام عليكم الرحيم waxaanu maanta halka isugu nimi inaanu ku xusno oo aanu ku baraarujino oo ku dhiirigelino oo ku taageero shirka loo iclaamiyay ardayga beelweynta Cabdilla Xaamud ee ka qabsoomay dooma Dhabandhiga deegaanka Dhabandhiga 9 bisha June insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir runtii waxqabad iyo horumar iyo turxaan saar iyo wax alla iyo hogaaminteedii oo wax wanaagsan oo runtii reerka maanta meel u socda inay ka soo baxaan waxaanu kaloo halka laftigeeda hambaliye u diraynaa ardayda kale beelweynta Muuse Ismaaciil iyaga laftigooda shir la mid ah shirkan qaarna uu qabsoomay qaarna uu qabsoomi doona iyagana waxaanu rajaynaynaa guul iyo gobonimo aanu rajayn doonaa bidmillaahi kariimna maxsuulkeedu wuxuu noqon doonaa haddii bidmidkeeda leeyahay in la isugu yimaado shir guud oo Muuse Ismaaciil inuu dhaco qabsoomo oo intayna noqoto gobolgoodii intaana waxaanu la garab taaganahay
sidii raggii iga horreeyay ka dhawaajiyeen taageeraan la barbar taaganahay inaanu ku dhiirigelino oo lagu dhiirado oo bidmillaahi kariim uu noqdo ka taninta iyo mustaqbalka beeshan ballaaran inuu noqdo mid runtii mustaqbalkooda halka reerku jihaynayaan runtii xogteeda gooya oo expectationkiisu uu noqdo wax weyn oo la filayo annaguna waan la garab taaganahay waanu idin tahniideynaa waanu idin garab taaganahay wax weyn oo wanaagsanna waanu idin filaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا شركة وحكوب بأجمي ما ننتي صدحات عيدك وما لنا خير غبطة إله وحكا أقبل كبرينا إلهي ما نتا خير كان تشوغنه أن دعينه شركة قصوص على بيش سيالة باتكيدة لشركة المستسمعين إن يقول كل ماضان إلهي عسى تشوليك كبرينا وما ننتي أيام التشريق وما ننتي صدحات وأيام بكوب بأجمي دمانتينا وحلينا ندعينه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكل خير قبا أنكم أنت تاجره مج يميسان له ألك وقدرينا قبل قدي قبل قبض الشركة عبد الله حامد بيش سجالة بتكيد له إعلامي عرفتوا ويتر هذا سيروا نحن معاكم وأيدينا معاكم وقلوبنا معكم وجيوبنا معكم مركا سدا ولا الصعودة ها وحويان قلبي وكالة صعنا كعنتنا وين كلا صعنا شيب كنا وين كلا صعنا مستعدين سماها مستعدين سبتيدين اللهم اني بلغته الله اكبر الله اكبر عاد بان السلام يا ترك شرفتي انت داونيسين انت مقليسين انت داونيسا ووذا تشوقنا الحمد لله رب العالمين وسدنا النهي قلبي صافيه وحن كفر احسن ما انت هذوك الشر سالاتي كذا شيء ثاني وارشرك النوبضيه وارياره وارشرك نقوله انت وذا تشوقنا نوبضيه أنا سني ما على الأقل لحدي بلود أفرتي بلود مر سني ما عندنا أركتدو وحوية وحوين أركتدو والقولنا ولا نينا وكلا مقنعي الكاسر ودنا شدة بالمال سبت النقطة محد نقطة every 45 days or 90 days or 120 days النقطة فالنما كنا أسرقنا حق شاب كنا مكاسو من السوق يعني تنقعت تقولينه إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت هلك فرديدا iyo inta codkayaga maqli doontaba salaanta islaamka salaanta salaamaha ugu qaalisan maridu ku salaamaya anigoo ah Kaysa Axmed Faarax Ismaaciil maanta waxaanu isugu nimi halka haddaanu nahay beesha Cabdalla Xaamud waayeelkeedii iyo waxgaradkeedii aqoon-yahankeedii dhalinyaradeedii haddaanu nahay inaanu taageero shirka ka dhici doona 29 bishan June Dabandhige ka dhici doona insha Allah biidnillaahi alkariim ayaanu u diraynaa taageero ah mid muruq iyo mid karti iyo mid hilba inaanu kula barbar taaganahay tolka shirka qabsanaya shirkaana insha Allah biidnillaahi alkariim waxaanu ka rajaynaynaa shir danta Cabdalle iyo danta Muuse Ismaaciil iyo danta Habar Yoonis bariba mid wax badan u tara inay ka soo bixi doono insha Allah biidnillaahi alkariim ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa waxaanuna leenahay maalin wanaagsan iyo waqti wanaagsan iyo maalin loo baahnaa shirkaasi dhacay shirarka kale ee beelweynta Muuse Ismaaciil ee iyana socdana waa taageersanahay maxsuulka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa insha Allah biidnillaahi alkariim mid Muuse Ismaaciil ay fadhi isugu yimaadaan shir isugu yimaadaan tala Muuse Ismaaciil oo go'aanina ka soo baxdo ayaanu rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi alkariim halkan ragga fadhiya waa waxgaradkii waa dhalinyaradi waa aqoon-yahanadii waa madaxdii intiiba way fadhiyaan beesha Cabdalle aad iyo aad baan idin salaameynaa dhamaantiinba waxaan idin leenahay jasaakumullahu khayr fi dunya wal aakhirah tolkana daawan doona iyo tolka shirka qaban qaabiyeba الله وبركاته marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Cabdalla Xaamud ee qurbo joogta halkan isugu timi marka labaad waxaan salaamayaa saxaafadda aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan maanta kulankaygani wuxuu daaran yahay
haddaanu nahay qurba joogta cabdalla xaamud oo halkan isugu timi inaannu taageero shirweynihii beesha cabdalla xaamud ee qolqoljoogta ay ku dhawaaqday ee baaqeedu baxay ee lagaga dhawaaqay ceergaabo degmada ceergaabo shirkaas oo ka qabsoomi doona 29 bisha Juun deegaanka Dhabandhige waxaanu maanta halkan uun kulankayagu yahay inaannu shirka aad iyo aad u taageersannahay hiil iyo hoona aanu la garab taagannahay cabdalla xaamud meel kasta oo qurbaa ka joogana waxa weeyaan taageersan yahay shirka soona dhaweynayno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa kiimira dhala ee waxa weeyaan khayr qaba ee lagu tamaradiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa hadalka intaasaan ku soo gabagabeynayaa maanta halka waxaa isugu timi qoorweyntii beesha cabdalla xaamud waxgaradkii aqoon-yahankii oo waxa weeyaan isugu yimi uun shirkan inay baaqaajeediyaan aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan intana daawan doonta iyo inta halka fadhidaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa sharafiya maanta inaan halkan tool qiimo leh oo aanan baryahan saragaynu ku aragno runtii waxaanu taageeraynaa shirka beelweynta cabdalla xaamud 29 Juun ka dhacaya Dhabandhige tawfiiqtu waxaan leenahay maasha Allah shirka Ilaahay shir khayr qaba ka dhigo haddaan nahay qurba joogta beelweynta cabdalla xaamud qurbaha degan baryahan baa waxaa noo socday kulamo badan teleconference waxyaabaha nusla qaadaneen waxa weeyaan shirka si muqla iyo miisaan leh u taageero halkan waxa jooga gudoomiyaha beelweynta cabdalla xaamud ee qurbaha waxa jooga aqoon-yahankii waxa jooga siyaasiyiintii waxa jooga gudoomiyahayga guud ee beelweynta Muuse Ismaaciil Isna Axmed Nuur Cumar Jabaabul runtii waa loo dhan yahay marka waxaan intayadan naloo soo xulay inaan message-ka gudbino marka xaleena shirka dhinac walba wayna ka taageersanahay insha Allah waxaanu na rabnaa in wax khayr qaba ka soo baxaan nuux baan ku soo dhaweynayaa inoo soo xili doona insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim rabbi yashrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marka koowaad waxaan salaamayaa tolka sharafta leh shirkan maanta ay bishu tahay maanta ay bishu tahay 8 bishii 8 shirkaasoo aanu in muddo ah qabanqaabinaynay inay tolku ay soo nagala soo qayb galaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay tolka waa mahadsantihiin maadaama annagiyo Cabdi Axmed aanu ahayn raggii isugu yeedhay tolkana soo ajiibay aad bay u mahadsanyihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa mahadsantihiin tolka waxaa isu keenay dareen oo dareenkaasoo ah in ay muujiyaan support inay tolkoodii ceergaabo shirka ka iclaamiyey ee uu ugu horeeyo chiefku Kayse Ismaaciil Muuse shirku ka iclaamiyey ceergaabo ee laga taageeray Hargeysa rag iyo dumarba ay taageereen inaanu annaguna qaadano roolkayagii diyaar baan nahay inaan roolkayga qaadano wixii tala ah iyo wixii tusma ah inaanu soo gudbino diyaar baan nahay tolka waxaanu iyagana insha Allah biidnillaahi alkariim faraynaa wixii gaari karaya ee shirka ka qayb gali karaya inay si wanaagsan uga qayb galaan oo shirka camiraan oo wixii tala ay hayaanna ku biiriyaan oo la isugu tago Dhabandhige oo shirka Ilaahay ka dhigo mid khayr qaba oo wax ummaddu ay ku tanaado oo aayaha mustaqbalkooda wax badan ka jaangooya Ilaahay ka dhigo intaas markaan halka kaga tago innaga maadaama aynu nahay qurba joog waa layna soo eegaya tolkeen wayna soo eegayaa tala laynaga doonayaa tusma laynaga doonayaa hiil dhaqaala laynaga doonayaa intabana diyaar baynu nahay soo ma aha intaba diyaar baynu nahay midnima ummaddu ku meel martaa ummaddu marka koowaad inay qalbiga ka midowdo inay quluubta ka midowdo ilaahay shirka ha ka dhigo kii ummaddu ku midowdo ilaahay shirka ha ka dhigo mid wax wanaagsan dadka iyo deegaankaba anfaca uu ilaahay ka dhigo waa idin wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantied